Sidoo Mosavela waa fanaan u dhashay wadanka India gaar ahaan ka soo jeedo community-ga dhanka dadka la yiraahdo Punjabiga. Waxaa la dilay maalintii Axad ahayd 29 bisha May 24 xabadood lagu dhuftay oo ku dhacday waliba qaar kale oo la waayay basaas ay tahay kangistarada India caadi ma ahan nabad inta umalina meesha saalimsay iyo groupkii filmaantan ku daawan jirin dhana joogan u maleynaya bal muuqaalkeena arintaas isku fiirinayna maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب شرفت بدن سلوا هذا مركله كسر هذا مقال كله ولكن زعيم كنا اسمه وسوي channel كوسو برو مركله واحد دلائكم سنتين سنة مرة دراسات هم مقالة channel كان كسر دينه سيدا ولا جرينا سام وشر جرينا سان وفكوا عسب channel كهذا كسر بيري وحن كله هاي سودو دمانتين أدي أدو ما سنتين فأنا كان مجا يسلي هذا هن كل مجا كلا لكن مجا أو ما عرفت ده stage كيسة وسيدو موسفلا وحوا فأنا رنتي أدي الله جرنا أيو الله ده كربا يعني وحوا أما وكمدي هاي يعني هندي الغيب تان كان يراهدو Punjabiga fanaankooda ama mid kamid ah fanaaniinta ay ku faanaan wuxuu ahaa nin rapper ah hadii YouTube-kiisa oo kale ama channel-kiisa marka aad gasho waxa markaasi uu dhaafay xitaa 10 milyan oo subscribers heesiisa qaar ayaa 500 billion oo kale ku dhawaad meelahaasi la daawaday adiga wuxuu ahaa fanaan markaasi aad iyo aad loo garanaa fanaankan ayaa maalintii Axad ahayd 29 bisha May isagoo gaarigiisa ku dhex jiro oo socdo xaafadiisa isagu uu degan yahay marka ama meesha uu isagu ku nool yahay agagaarkeeda inta maaragtay tuuga isku soo hareereysay ayaa hal mar rasaas oo looga qaaday marka dilka fanaankan ayaa waxa jiro dad loo aaneynayo iyo dad ama qof sheegtaba marka taas intaynan u galin waxa jiro muuqaal la baahiyay kamarada oo maaragtay CCTV-ga markaasi laga qabtay oo cadeynayo ama dadka tusaayo sidoo oo gaarigiisa wato sidaad arkaysaan gaarigaas ayuu wataa kadibna yani sakama kadib waxa markaasi isqabsanayso rasaas inta soo rasaas dhaceysay marka ninkaas lagu riday kadib marka nimanka tuugada markay hubsadeen ninkani dhowr xabad ay ku dhacday oo ay qaarijiyeen ay meesha ka carareen waxaana marka isla markiiba soo gaaray maaragtay bulshada ama shacabkii meelaha ka dhawaa waxay noqotay markaasi ninkii in la caawiyo isbitaal loo la cararo kadibna sidii ayuu markaasi uu ku geeriyooday waxa sidoo kale markaasi jirto in sidoo kale markaasi eeda ninkani dhimashadiisa ama dilkiisa wax laga siiyay maamulka Punjab sababtoo waxa la yiri 420 qofood meelahaas adii ku dhawaad oo uu kamid yahay fanaankan ayaa waxa la yiri maalin ama laba maalin meelahaas ka hor dawladda waxa ay sheegtay la yiri marka adiga waa yani ismaamulka meesha ka jiro in yani dadkaasi amaankooda la dhimo ama la xiyuubiyo macnaha awal waxay lahaayeen dad waardiyeenayo oo la socdo amaankooda sugayo balse waxa la yiri dawladdu waxay go'aansatay in yani dadkaasi maybe inay isdhahaan yani dadkan amaankoodii waxyaabaha ku baxayo looma baahan inay isiraadeen oo markaasi saas loo qaatay kadib markii ay cadaatay ninkan inuu dhintana waxa markaasi la yiri in ismaamulkaasi warqad loo diray oo maxkamad u dirtay oona loo sheegay ama la weydiiyay inay waqti yar gudihiisa ay ku soo cadeeyaan sababta keentay in dadkaasi markaasi amnigooda sidaas loo dayaco ayagoo la og yahay markaa inay khatar ku imaan karto mid kale oo aydan waxa jirto ku saabsan shil markuu dhaco iyo social media waxa jiray qof oo asna sidoo kale social media soo galay oo kamid ahaa dadkii ninkaasi ka agdhawaa oo xilligaasina markaasi aanan soo gaarin okay marka ninkan waxa la yiri inta albaabka laga furayo markaasi waa uu matagay macnaha yani ninkan rasaas badan ku dhacday xaaladiisa kulay yani dhan walba ay noqon kartaa ninkaasi waxa uu sheegay waxay ahaayeen in ku dhawaad wuxuu yiri 20 daqiiqo yani ninkaasi asoo meesha ku jiro aanan loo tagin taas bedelkeedana wuxuu yiri qof waliba waxa uu la soo baxay telefonkiisa si uu u duubo macnaha waxa meesha ka dhacay yani wuxuu yiri sakama ka hor daqiiqada ka hor yani waxa dhici lahayd markaasi laga yaabi lahaa in ninkani isbitaalka marka la geeyo marka yani wax un jaanisa uu heli karo laakiin dadka ayaa waxay ku mashquuleen ninkani intay badbaadin lahaayeen markaasi in bal horta wax ay duubtaan ama ay sawirtaan taasna ayadana runtii waa dhankeeda marka isbitaalka la geeyay oo maaragtay la sheegay la shaaciyay inuu dhintay ayaa warkii adduunka markaasi uu isqabsaday maalintaas maalinta xigtay adiga ilaa iyo waliba maalin kale oo sii xigtay mar walba ninkan gurigooda ayaa markaasi la horjoogay taageerayaashiisa dad badan markaasi ay saf u soo galeen maalintii oo talaadada ahayd oo shalay ahayd ayaana waxa la sheegay markaasi sida uu dhaqankoodu yahay dadkaasi xaalkooda ilaahay oge
in la gubay macnaha hadee saasay ku sameeyeen qofku marka uu dhinto waxa waa alaabtii filmaanta ku taawin jirnay qoriyo waxa la isku saaraa benzin miya wax kalmiya lagu shubaya yani qofkaas waa kasa hadaba fanaankan dilkiisa ayaa markaasi waxa la xiriirinayaa labadan qofood midna waa uu sheegtay dilka oo waa uu qirtay midka kalena waa la xiriirinayaa midkan arkaysan waxa la yiraahdaa magaciisa Laurent Bisnoy waa gangster oo maaragtay Punjabi ah oo waliba laga cabsado xilligan hadda la joogana waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaalo magaalada Delhi balse waxa la sheegay yani dad isaga la xiriiro oo kamid ah ninkani haddana sidoo kale asna aan soo qaadan doono oo sheegtayba ninkaasi inuu isaga ka dambeeyay dilkiisa ayaa waxa la sheegay markaasi inay isku dhow yihiin okay ninkan la yiraahdo Laurent Bisnoy ayaa sidoo kale 2018 sida la sheegay waxa lagu xusuustaa markaasi inuu u dhaartay actorka la yiraahdo Salman Khan oo na sheegay markaasi inuu dili doono waa wareeg hadaba ninkan isagoo xiran sababtoo loo xiriirinayo dilka fanaankaasi ayaa waxay tahay ninkan kale ee dilka sheegtay ayaa magaciisa waxa la yiraahdaa Goldie Brar ninkani marka waxa la sheegay marka asna inuu yahay nin asalkiisa Punjabi ah balse yani Canadian ah asal ahaan macnaha ama meesha ku dhashay kadibna yani meesha dambi badan ee waxyaabahaas inuu ka soo galay yimid oo u soo laabtay India waliba agagaarkaasina marka jooga hada marka la shaaciyay ninkan dilkiisa ayaa waxa marka soo booday ninkan la yiraahdo Goldie Brar oo waxa uu soo qoray yiri ninkaas dilkiisa anaga ay ka dambeeyeen okay maxaad u disheen hadaba waxa uu sheegay markaasi inay ugu argudayeen nin kale oo la yiraahdo maaragtay Vicky oo kamid ah dhalinyartooda ama yani gangsterka isku yihiin oo sanadkii la soo dhaafay 2021 bishii Agoosto meelahaasi la toogtay oo la dilay marka wuxuu yiri ninkaas ayaan ugu aaraynay oo ma aragtay ninkan sida darteeda ayaan u dilnay hada marka la isku soo dardaro dadkan ha sheegtaan kuwan kalena ma aragtay markaasi ha loo aaneeyo wax ilaa hada markaasi dawladda ay u soo qabatay ma jiraan marka sababta loo soo qaban waaye iyo in la soo qaban doono iyo meel maaligu ogay qofka dilka sheegtay iyo waa mowduuc kale marka insha Allah wixii ku soo kordho waa isla arkeenaa dhamaantiin waa maasantiin inta muuqaalkan daawateen inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad.